السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنة الكمر كلا سود وواضح أدي هذا ومهتسنتهين ما أنت وإسنين صدق إلى باتنك بيش ديسمبر إلى بيتونات سنة كلا بدو كون يافري إلى باتنك مقال كان وحربائنا إن كل وذاقو الله أرمو بدن أو كسب سن لعك ونوجهاي سومالدو جرهن كوم ريكن كجوا لعك أدي وجعليهن غير من الصورة ورفع عن أيان دي هيا أو كأدن جال تاكسي كريدت oo gobolka tii uu bixinayay state-ka Minnesota uu bixinayay iyo sidoo kalena dhinaca federaalka senator kamida senatarada Mareykanka uu soo jeediyay lacagta ay federaalku ku bixiyaan tax return-ka ilmaha oo 2,000 ah in la kordhiyo imise ayuu doonayaa in la kaarsiyo bal aan dib idii celiye xilligii coronavirus-ka lacagihii stimulus check oo 1,400 ahaa ma heshay mase ma helin haddii aadan helin IRS-tu hadda waxay leedahay dadkii aan helin lacagtaasi waan u soo diraynaa goormo ayaa la soo dirayaana sidoo kale waan idin la wadaagayaa waan ognahay abkan la yiraahdo Zelle oo lacagaha la isugu diro bangiyada Zelle oo dadku xadbada dhalinyaradu isugu diraan amaba ayuutada sida rabtide ama qofka hadduu rabo ehelkiisa ama saaxiibadiisa inuu lacag gudaha Mareykanka isaga diro haddaba abkaasi iyo 7 bangi oo wada shaqeyn kala dhaxayso ayaa dacwad dawladdu ay ku soo oogtay dacwadda lagu soo oogay maxay tahayna sidoo kale waan idin la wadaagayaa balse marka hore aan ku hormaro dhinaca gobolka Minnesota reer Minnesota warkan si fiican u dhageysta adinka oo kaliya ayuu idin quseeyaa gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz isagoo Kamala Harris markii doorashadii ay ku guuldareysteen lama horaan waa cawska jilaale dib ayuu ugu soo laabtay xilkiisii gudoomiyenimada ee gobolka Minnesota ayaa hadda arbacadii la soo dhaafay waxa uu ku dhawaaqay arrin wadanka aan ka jirin oo gobolka Minnesota uu noqonayo gobolkii ugu horeeyay ee sameeya arrintaasna waxay la xiriirtaa lacagta jali tax credit-ka ee gobolku uu bixiyo sanadkii la soo dhaafay waxa uu saxiixay gudoomiyaha gobolka sharci la yiraahdo the tax credit bill ama the tax bill oo dadka gobolka Minnesota jali tax credit lagu siinayo waa tii Wallace checks lacagiha la soo diray oo qaar kood la siiyay marka state-ku waxa uu leeyahay waxa aan sameyn doonaa wax la yiraahdo advanced jali tax credit macnaheedu waxa ay tahay sanadkan marka aad canshuurta xareynaysid sanadkan dhamaaday canshuurtiisa marka aad xareynaysid waxa aad dalban kartaa sanadka soo socdo lacagtii state-ka uu ku siin lahaa ayaa dalban kartaa marka waa lacagtii sanadkii dambe aad heli lahayd oo caruurtaada lagugu siin lahaa ee jali tax credit-ka ayaad sii hormarsan kartaa haddii aad rabtana waa iska dhaafi kartaa oo tan sanadkan oo kaliya ayaa xareyn kartaa midda kalena sanadka dambe ayaa sugi kartaa haddaba sidee arrintan u shaqeynaysaa sanadkii la soo dhaafay waxa ay gobolka Minnesota ay sheegeen in 223,000 ay ka faa'iideysteen oo qof jali tax credit-ka lacag 562 milyan ay bixiyeen isku celcelis ahaan qoys kastana lacag $1,242 oo helayay marka haddii sanadkan 2024 marka aad xareynaysid mar sharciga markii uu saxiixay gudoomiyaha gobolka ayaa qaybta canshuuraha ee gobolka Minnesota waxa la yiri waa inaad isbedel ku sameeysan qaybta canshuur xareynta oo qofka aad ku soo dartaan meel lacagta sanadka soo socda uu si dalban karo haddii uu u baahan yahay arrintan marka sidee u shaqeynaysaa marka aad canshuurtaada xareynaysid hadda January wixii ka dambeeyo oo xilliga taxi xareynta ay furunto ama la xareynayo marka aad taxigaada 2024 aad xareynaysid sanadkii dhamaaday waxa aad sameynaysaa qayb waxa jirta la yiraahdo advanced tax credit oo aad jaxi ama tig aad siinayso marka qaybtaasi haddii aad tig siiso macnaheedu waxa ay tahay tax return-kaadii sanadkan 2024 oo buuxo waad helaysaa sidoo kalena waxa aad helaysaa qayb kamid ah canshuurtii ama taxigii lagugu siin lahaa caruurtaada sanadka soo socda ee 2025 saddex qayb ayayna kala noqon doontaa saddex mar oo kala duwan ayaa lacagtaasi lagu soo diri doonaa marka 6 bilood ee u dambaysa sanadka 2025 ee dhalanaya ayaad qayb heli doontaa tax return-ka 2025 markaad xareysane qaybta kale ayaad heli doontaa waxaan filayaa inaad intaasi fahanteen tax return-kaada 2024 hadda markaad xareynayso January wixii ka dambeeyo oo la furo qayb waxa jirto aad leedahay waxaan doonayaa sanadka soo socda jali tax credit-kii aan caruurteeda ku heli lahaa ayaan u baahanahay marka aad tig siiso sanadka kala barkiisa 6 bilood oo u dambayso ayaad helaysaa
qayb ka mid ah lacagtii sanadka soo socda ee Jolly Tax Credit-ka qaybaha kalena tax return-ka 2025 soo socda markaad xareyso ayaad helaysaa marka calaa ilmo kasto waa $1,750 xitaa xad ma lahan ilmo kasta oo ku jooga haddii 17 sano ay ka yar yihiin waad ku helaysaa lacagtaasi Jolly Tax Credit-ka marka waa lacag aad u fara badan gudoomiyaha gobolka Minnesota waxa uu ujeedada aan ka leenahay in dadka qoysaska shaqeeya loo hormariyo lacagtii sanadka soo socda ay heli lahaayeen muhiimadoodu waxay tahay in caruurta horta faqiirtinimada laga saaro iyo in qoysasku ay gaaraan xornimo dhinaca dhaqaalaha ah sanadka oo idil ay qoysaskooda ay taageeri karaan marka gobolka Minnesota waxa uu noqonayaa gobolkii u horeeyay ee sidaas sameeya oo sanadka soo socda canshuurtii la xareyn lahaa gobolka Jolly Tax Credit-ka aad heli lahayd ayaa lagu sii hormarinayaa haddii aad doonayso waaye haddii aadan rabinna meeshaasi tig la siinayo faraha ayaad ka qaadi kartaa waxaad leedahay sanadkan aan rabaa lacagtii aan ku helay Jolly Tax Credit-ka iyadoo sidoo kale sanadka dambana aan sideedii caadiga u xareysan karo adiga ayay kugu xiran tahay maahan wax lagu qasbayo shakhsiga ayay ku xiran tahay marka tax return-ka oo xareynayo waxaan filayaa inaad fahamtay wixii su'aalaad qabtaan dhinaca commentiga ayaan ku arki doonaa dhinaca federaalka senator la yiraahdo senator Josh Hawley oo Missouri laga soo doorto ayaa waxa uu diyaarinayaa sharci in la ballaariyo Jolly Tax Credit-ka in caruurta lagu bixiyo federaalka waxaan ognahay qofku ilmo kasta $2,000 ayaa lagu siiyaa laakiin hadda isagu waxa uu leeyahay waa in Jolly Tax Credit-ka ama CTC loo soo gaabiyo waa in $5,000 ilmo kasta lagu bixiyaa halkii 2,000 ay ka ahayd arintaasi waa arin wanaagsan waxa uu leeyahay madaxweyne Trump maadaama Trump uu la wareegayo bil kadib xukunka wadanka waxa doortay ayuu leeyahay taageerada qoysaska shaqeeya ee caruurta leh ayaa doortay sidaa darteed sharciga next year-ka Congress-ku ansixinayo waa in lagu soo daraa caruurtii halkii 2,000 waalidiinta lagu siin jiray hadda $5,000 waa in lagu siiyaa arintan waa hindiso hadda kadib la soo jeedin doono laakiin waa qorshe fiican iyadoo arintaasina sidoo kale dhinaca kale laga cabsi qabo in deynta dowladda lagu leeyahay lacag $1,000,000 ay ku kordhiso hadda deynta dowladda lagu leeyahay waa 36 trilyan marka waxa la leeyahay arintaasina deynta dowladda lagu leeyahay kordhin kartaa laakiin halkii ilmo kasta ka waran 2,000 dowladda federaalka ay kugu siin jirtay haddii 5,000 ay noqoto arintaasina waa lacag fiican waa hindiso la soo jeediyay Trump iyo xisbigiisa maadaama Congress-ka aqlabiyadiisa ay iyagu la wareegayaan madaxweynihiin ay Republican-ku yihiin arintaasi ma ka dhabayn doonaan waan sugi doonaa sanadka soo socda iyo wixii arintaasi ka soo kordha haddii ay wax ka soo kordhaan waa idila socodsiin doonaa waa tahay dhinaca xilliga coronavirus-ka aan dib ugu laabano lacagta stimulus check oo $1,400 ahayd oo dadka loo soo dirayay ma heshay haddii aad heshay waa heshay laakiin haddii aadan helin hadda IRS waxay leedahay dadka aan helin lacagtaasi waan u soo diraynaa IRS waxay tiri lacagtii $1,400 ahayd ilaa iyo 1 milyan oo qof oon helin ayaa jirta sidaa darteed lacag 2.4 bilyan ah ayaan haynaa oo aan doonayno inaan siino dadkii aan helin lacagtii $1,400 ahayd lacagtaasi waraaqa ayaa ka soo horeyn doona oo IRS ay soo diraysaa waraaqdaasi haddii aad hesho waxay micnaheedu tahay lacagtii $1,400 ahayd ma aadan helin oo hadda ayaa lagu soo dirayaa laakiin waa dadka tax return xareeyay sanadkii 2021 haddii aad tax return xareysay sanadkaasi 2021 oo lacagtii $1,400 aadan helin hadda ayaa IRS ay ku soo diraysaa IRS waxay tiri waxaan ogaanay in ay jiraan dad fara badan oo u qalmay lacagtaas inay helaan laakiin aanan helin haddii tax return-kaadii sanadkii 2021 aadan weli fursad ayaad haysataa si lacagtaasi aad u hesho oo waxay leeyihiin ilaa iyo 15 bisha Abriil ee sanadka 2025 xilligaasi oo xilliga ugu dambeeyay tax return wadanka la xareyn karo in aad xareyso tax return-kaadi 2021 si aad u hesho lacagtaasi $1,400 marka waxaa loo soo dirayaa direct deposit qofku haddii uu addresskiisii bedelay ama bangigiisii uu bedelay waa inuu update gareeyaa oo isla markaana IRS haddii sanadihii ugu dambeeyay aad ku xareynaysay waaba update gareysan tahay marka waxay leeyihiin qaab jeegna waan u soo diraynaa qaab direct depositna waan u soo diraynaa waxaana lacagtaasi la soo diri doonaa dhamaadka bisha koobaad ee January ee soo socota ee sanadka 2025 laakiin waraaqa ayaa ka soo horeyn doona lagugu sheegayo lagu leeyahay lacagtaasi ma aadan helin xilliga stimulus check oo recovery rebate credit-ka marka waa ay ku soo socotaa ee ogow marka dad fara badan oo aan helin haddii ay jiraan oo Soomaaliyana arintaasi si ogaada
ugu dambeyntii abkan Zelle waa naqaanaa oo dadku ay isugu diraan lacagaha ama dhalinyaradu ay yuto ama hagbad haddii ku jiraan ama qoysasku ay lacagaha isugu diraan. Abkaasi waa ab gooniya marka waxa uu xiriir la leeyahay ilaa dhowr bangi oo bangiyada Mareykanka. Abkaasi marka waxa hadda dacwad ku soo oogay Jimcihii Consumer Financial Protection Bureau hay'adda la yiraahdo oo waxa haddii aan turjumo yahay xafiiska ilaalinta maaliyadda ee macaamilka ayaa dacwad ku soo oogay. Waxay leeyihiin abka Zelle waxa iyo bangiyada la shaqeeyo dad fara badan ayaa lacago laga khiyaamay, iyaguna waa ay ka hortagi waayeen oo waa ay ku guuldareysteen dadkaasi lacagahooda in loo soo celiyo ama marka horeba in ay kooxahan scammers-ka wax khiyaama dadkaasi ay lacagtaasi ka khiyaamaan. Lacagta luntay waa 870 milyan oo dollar. Abka Zelle iyo bangiyadaasi wada shaqeeya lacagtaasi way ka hortagi waayeen dadka macaamiisha inay u badbaadiyaan amaba ay u soo celiyaan. Bangiyada la soo eedeeyay waxaa ka mid ah marka JP Morgan oo Chase loo yaqaano, Wells Fargo iyo sidoo kale Bank of America oo muddo 7 sano ah macaamil uu kala dhaxay. Bangiyada kale sidoo kale waxaa ka mid ah Capital One, PNC Bank, Trust Bank la yiraahdo iyo US Bank. Dhammaanba 7daasi bangi waxaa la yiri iyo Zelle wada shaqaynta kala dhaxaysa. Abka Zelle waxa uu ku guuldareystay dhowr waxyaabood oo ka mid ah in dadka abkaasi samaysanaya identification-kooda ama sida qofkaasi loo xaqiijinayo ay aad u liidato. Waxa sidoo kale uu ku guuldareystay in ay si joogto ama saxa ay u baaraan eedeymaha ah dadkaasi in lacag laga khiyaamay oo kooxaha scammers ay ka khiyaameen. Waxay sidoo kale ku guuldareysteen in dadka macaamiisha ah lacagtii laga khiyaamay dib loogu soo celiyo. Marka dacwadaasi ayaa lagu soo oogay waxa la leeyahay 870 milyan ayaa dadka macaamiisha ah ka luntay oo kooxaha scammers ay ka khiyaameen. Bangiyada iyo abka Zelle waa ay ku guuldareysteen arrintaasi markii hore inay ka hortagaan, haddana lacagtaasi markii ay luntay dadkii ay ka luntay oo laga khiyaamay dib loogu soo celiyo. Arrintaasina waa ay jirtaa. Marka abka Zelle arrinta dacwadaasi ayaa lagu soo oogay bangiyada wada shaqayntu ay kala dhaxayso. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiina Cilmi Waaro idin la sida iyo nabadgelyo.